يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. walaalayaal halkan waxaanu ka bilaabi doonaa maan darsigeeni labaad ee ku saabsanaa cilmiga dhaxalka ama cilmiga faraa'idka. darsigii koobaad waxaanu ku soo qaadanay hordhac iyo muqaddimo ku saabsan cilmiga faraa'idka. maanta darsigeenu wuxuu ka bilaabmi doonaa arkaanta irtiga ama arkaanta dhaxalka iyo shuruudaha dhaxalka iyo asbaabta dhaxalka wax lagu dhaxlo iyo waxyaabaha qofka dhaxalka u diiday ee culimadu ay yiraahdaan mawaani'ul irthi. haddaynu ku bilowno arkaanta dhaxalka walaalayaal dhaxalku waxa uu leeyahay 3 rukni. rukniga koobaad waxa weeye la dhaxle horta in la helo qof meeyda oo xoolihiisa la dhaxlo ama muwarrith waxa Carabi lagu yiraahdo oo ah qof meeyda oo xoolo ka tagay inaynu helno. markaas arkaanta aynu sii faahfaahinay arkaan horta waxa la yiraahdaa shayga haddii la helo uu dhaxal imaanayo haddii mid kamid ah la waayana aan meesha dhaxal imaanaynin. marka shayga koobaad marka loo baahan yahay in wax la dhaxlo horta marka koobaad waa in la helo qof la dhaxlay ah oo meyd ah oo xooli oo la dhaxlo oo wax ka tagay oo xoolihiisa la dhaxlo. qodobka labaad waa in rukniga labaadna waxa weeye waa in la helo qof dhaxla ah oo qofkii hore ee dhintay wuxuu ka tagay dhaxlaya oo isagu xoolihii milkinaya gadaashiis. rukniga saddexaad waxa weeye in la helo dhaxal oo qofkii hore wuxuu ka tagay xoolo uu ka tagay in la helo. marka saddexda mid kamid ah hadii la waayo lama helayo dhaxal meeshii dhaxal ma soo galiyo oo haddaan cidiba dhiman de wax yaa la dhaxlayaa cidiba ma dhimaninba. haddii qofkii dhintay qofku dhinto laakiinse aanu cid dhaxashaba aanu ka tagin iyana sidoo kale meeshii dhaxal ma imaanaya ee xoolaha sida loo sii wado baytulmaalka iyo bankiga muslimiinta lagu shubaya. qodobka saddexaad haddii qofkii qof dhinto qofkiina oo qof dhaxla ka tago laakiinse qofkii aan waxba ka tagin ee isagoo aan wax alaalay wax adduunyaale oo haysta oo faranbaran oo adduun ka baxo de qofkaasna meesha dhaxal ma imaanayo qofkii wax laga dhaxlaaba ma jirto marka dhaxalba la isugu imaan maayo. marka arkaanta dhaxalku markay dhaxal la helayo saddexda tiir waa in la helo. saddexda tiir marka la helo kadib baa wax la dhaxlaa. saddexda tiir markaynu soo helno hadaba kadib qofkii dhaxalka soo fadhiisanay 3 shardi baa ku xiran. 3 shardi walaalayaal waxa weeye ta koobaad horta waa in la helo taxaqquq mawt al-muwarrith. waa in la hubo horta qofkan la dhaxlayaa inuu geeriyooday qof nool ama geeridiisu qof nool horta lama dhaxlo qof geeridiisu madmadow ku jirana lama dhaxlo oo xoolo qofkii lahaa taagan yahay yaa dhaxlaya qofkii dhaxli lahaa qof dhaxlaya ma jirto. waa tan labaad ee qofkan wax dhaxlayaa waa in uu isagu ka geeri dambeeyo uu nool yahay marka xoolaha la dhaxlayo oo qofkani waa inuu hubnaa oo aynu yaqiin ahaan u haynaa in qofkani ka geeri dambeeyay qofkii uu dhaxlayay. qodobka shardiga saddexaad waxa weeye in aynu garanayno labadan qof ee isdhaxlaya sababta isku dhaxlayaan. dadkani ma dad qaraaba ah walaala ma isu aaba ma isu xaasba miyay isdhaleen waa inaynu garanayno sababta dadkan isu dhaxlayaan oo markaynu inta saddexdaas shardi qofka marka la helo markaas dhaxalkii aynu heli karaynaa. haddaba dadka dhaxalka imaanaya asbaab bay ku yimaadaan qof kasta dhaxalka iskama yimaado. qofka marka dadka dhaxalka asbaabta la isku dhaxlayo waa 3 marka. sababka koobaad ee la isku dhaxlayo waxa weeye waa wada dhalasho dadkan inay ka dhaxayso dhiig iyo dhalasho ay ka dhaxayso oo ah nasab inuu ka dhaxeeyo way isdhaleen midlan waa isu ilmaadeer waa walaalo waa saas oo kale inay tahay. ama se sababka labaad ee la isugu imaan karo dhaxalka la isugu imaan karo waxa weeye waa dhaxdin ama se guur in labadan qof ay isu dhaxeen labadan qof ay isdhaxlayaan waa isqabeen guur nikaax saxiixa ka dhaxeeyay oo guur xalaal ay isku qabeen kadib midkood baa dhintay qofkan kale dhaxalkiisa waa imaanaya waana sabab sharci ah oo labada qof isku dhaxli karayaan. qodobka saddexaad ee walaalayaal la isku dhaxli karaya waxa weeye in labada qof ay ka dhaxayso wax la yiraahdo xoreyn oo qofkan dhintay wuxuu ahaa markii uu noolaa wuxuu soo maray xaalad adoonnimo kadibna dad baa iska lahaa oo adoon uu ahaa kadib dadkii baa xoreeyay kadib markii uu xoroobay wuu dhintay. markii uu dhintay ninkii xooluhu ka tagay cid dambe oo dhaxashay ma jirto ilaa dadkii xoreeyay uun baa jooga. dadka xoreeyay xoolihiisa sabab ay ku dhaxlaan bay maanta leeyihiin oo ah sababul walaa ama sabab inay xoreeyeen oo qofkan ay xaaladii adoonnimada intay ka saareen ay iyagu nimco ku galladaysteen oo ah inay qofkan xoreeyeen adoonnimada intay ka saareen ay xornimo gaarsiiyeen. inta hadaan kaga gudubno walaalayaal asbaabta dhaxalka
waxaynu u gelaynaa qofkii intaasoo arkaantii iyo shuruudii iyo asbaabtii intaba marka lasoo helo waxaa jirta qofkii isagoo intaasba kusoo sifoobay intaa hore aynu soo xusnayna kusoo sifoobo shuruudaha soo buuxiyey in haddana qofkii dhaxalkii loo diido qofkii in dhaxalkii loo diido saddex midood mid unbaa keenta waa qodobka koobaad ee qofkii inuu horta uu ku sugmo in dil oo qofkani uu dilay qofkii uu dhaxalkiisa lahaa qofku hadduu qofkii uu dhaxalkiisa lahaa uu dilo oo uu gacantiisa ku baxo qofkaasi siday doontaba ha ku dhacdo ha ku dilo qofkaasi haddii gacantiisa uu ku baxo dhaxalkiisa ma yeelanayo waayo shareecadu waxay u diiday qofkan qofka dhaxlay qofka hadduu dilo inuu dhaxalkiisa yeelan waayo shareecadu waxay u diiday waxaa ka dhalanaysa haddii la yidhaahdo qof kastaaba qofkii uu dhaxli lahaa hadduu dilo dhaxalkiisa wuu yeelanaya dadkii intii lays raagsado in hadhow kurka layska wada guro oo lays wada laayo oo odaygii hadda maalan wiil baa aabihiis hanti leeyahay kadibna hantidii odayguu raagsanayaa odaygii kadib intuu dilo buu hadhow caayar xoolihiisa dhaxlaya marka waxay keenaysaa taasina in ummadii laysku wada fasaxo oo dadkii lays wada laayo marka si taas albaabkaas loo xiro shareecadu waxay amartay in qofku hadduu qofkii uu dhaxli lahaa uu dilo inaanu dhaxalkiisa waxba ku yeelan qodobka labaad ee dhaxalka diidaay waxa weeye waa addoonnimada haddii maalan nin dhinto uu ka tago wiilkiisii oo addoon ah wiilka addoonka ah dhaxalka aabihiis waxba kuma yeelanayo waayo waxaanu dhaxal ugu yeelanayn waxaanu dhaxalka waxba ugu yeelanayn wiilkan addoonka ah isagii baa waxa uu yahay badeeco nin leeyahay oo qof kale uu gacantiisa ku jira isagiina waxba ma mulkiyi karayo waayo isagii baa la leeyahay qodobka saddexaad ee walaalayaal dhaxalka diidaa waxa weeye diinta oo lagu kala duwanaado haddii dadku diinta ay ku kala duwan yihiin maalan nin baa dhintay wuxuu ka tegay wiilkiisii oo gaala wiilkaa gaalka ahi ma dhaxlayo aabihiis oo wuxuu u dhaxli waayey nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yarithu lmuslimu alkaafir walalkaafir almuslim gaal muslim ma dhaxlo muslimna gaal ma dhaxlo marka labada qof hadday kala diin duwan yihiin isma dhaxlaan dhaxalku wuxuu ku xidhan yahay shardiga dhaxalku waxa weeye labada qof inay isku diin yihiin intaasi waa saddexda shay ee u diida qofku dhaxalkii isagoo xaq u yeeshay haddana dhaxalkii ka hor istaagta inuu wax dhaxlo haddaba dadka wax dhaxlaayo waa kuwe dadka wax dhaxlaayo walaal waa laba qaybood qofkan meydkaa dhintay imaa waxaa dhaxlaya rag imaa waxaa dhaxlaya dumar imaa waxaa dhaxlaya dadku jiro rag iyo dumar ba isugu jira haddaba ragga meydka dhaxlayaayo waa 10 nin 10ka nin ee meydka dhaxlaya walaalayaal waxay kala yihiin sida soo socota kow qofka wiilka ninka koobaad ee meydka dhaxlaya dhaxalkiisa xaq u leh waa wiilkiisa oo haddii wiilkiisii jooga dhaxalkiisa xaq u leh qofka labaad ee dhaxalka xaq u leh dhaxlaya meydka waxa weeye waa wiilku awoowaha u yahay haddii uu nin yahay qofka dhintay ama se ayeeyada u tahay hadday tahay qofka dhintay islaan ama gabar wiilkaasna bisharti awoowaha loo yahay ama ayeeyada loo yahay waa inuu dhalo wiilkiisi oo qofkan dhintay wiilkiisi maalan oday baa dhintay wuxuu ka dhintay wiil uu awoowa u yahay wiilkiisu dhalay waa dhaxlaya ama se islaam baa dhimatay waxay ka dhimatay wiilay ayeeyo u tahay oo wiilkeed u dhalay waa dhaxlaya qofka saddexaad dhaxlaya waa aabihiis meydka aabihiis isna wuu dhaxlaya qofka afraad waxa weeye waa meydka awowgiis isna awowgiisna dhaxalka waxba ku leeyahay qofka shanaad ee qofka dhaxlaya waxa weeye waa walaalkiis ha ahaado mid ay isku bah yihiin mid ay isku aaba yihiin ama mid ay isku hooyo kaliya ay yihiin qofka lixaad ee dhaxlaya ninka lixaad ee dhaxlaya waxa weeye waa wiilku adeerka u yahay ee walaalkii dhalay wiilka adeerka u tahay ee walaalka dhalay ama se islaantu ay eedada u tahay walaalkeed dhalay iyana waa dhaxlaya qofka toddobaad ee dhaxlaya waxa weeye waa adeerkiisaas qofka adeerkiis waa dhaxlaya rag ha ahaado dumar ha ahaado qofka sideedaad ee qofka dhaxlaya waxa weeye in adeerkiisna waa dhaxlaya qofka ninka sagaalaad ee qofka dhaxlaya haday qofka dumar ay ahayd waxaa dhaxlaya zawjkeedii ama xaaskeedii ninkeedii qabay ee xalaasha ay soo ahaayeen haday dhimato isna waa dhaxlaya qofka tobnaad ee dhaxalka wax kule isna waxa weeye muctiq ama xoreeye qofkan hadduu adoonnimo soo maro oo cid kale oo dhaxasho la waayo qofka tobnaad ninka tobnaad ee dhaxlaya waa ninka isaga xoreeyay ee xornimada siiyay ee ka saaray adoonnimada haddaan intaa kaga gudubno walaalayaal ragga wax dhaxlaya waxaynu u gudbaynaa dumarka wax dhaxlaya dumarka iyana wax dhaxlaya walaal tiradoodu waa 7 waxayna kala yihiin gabadha uu meydku dhalay gabadha labaad ee wax dhaxlaysa waa gabadha oo dhaxlaysa waxa weeye waa gabadha uu awoowaha u yahay ama ayada ay u tahay wiilkiisu dhalay ama wiilkeedu dhalay qofka saddexaad wax dhaxlaya meydka dhaxlaya waa hooyadii qofka afraad ee meydka dhaxlaya waa ayadiis ha ahaato mid xagga hooyo ka timid ama xagga aabba ka timid qofka shanaad ee dhaxlaya waa walaashiis ha ahaato mid ay isku bah yihiin mid ay isku hooyo yihiin iyo mid ay isku aabba yihiin intaba
هذا نينك هدو دينتونا قف كست مروده قف مروده اللحاد ee dhaxlaysa waxa weeye zawjadiisa ama xaaskiisa qofka dumar ee toddobaad ee dhaxalka soo fadhiisan karta ee macquul tahay dhaxal timaado waxa weeye waa muctiqa hadii ninkani adoon ahaa oo qof dumar ay xoreysay qofkii dumarka ay xoreysay hadii adoonkeedaasi dhinto adoonka ina dhaxal bay ku leedahay walaalayaal darsigeeni maanta intaas uu inaga geeyahay hadii alla ku dhigo insha Allah dadkan iyo say wax u dhaxlayaan baynu darsiga dambe ku faahfaahin doonaa wabillahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ta'ala